madaxweynuhu kitaab baa dee lagu dhaariyey wuxuu ku dhaartay dalka diintiisa iyo dadka iyo dalkaba inuu ilaalinayo ayuu kitaabku maray marka tani waxay ka soo horjeedaa diintii waxay ka soo horjeedaa dhaqankii waxay ka soo horjeedaa qiyamkii saad sheegtay akhlaaqiyadkii ummadda ay burburinayso marka cidda koobaad ee aakhiriya adduunyada laga xisaabtamaya maaha adduunyada quree maca aakhiro laga xisaabtamaya waa madaxweynaha dee maanta kolleyba ma qarsoono ujeedadeedii oo filima in la isweydiinayo ummaddu aad bay runtii uga dharagsan tahay ummadaasun in akhlaaqdeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda laga weeciyo ayay xaruntaasi maanta ku suntan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا ورئيسي قارك يعني لي لندنه أبوان يوسف عثمان عبد الله عيسى وكما غادر أبوان يوسف شاعر أبوان كوحن كورة سندونا قارهان حرون كتالا مجالة هرقيسة والله مقع بحضي حرون تدقنك ee Hargeysa kiisas baa ka dhacay xarunta dhaqanka ee Hargeysa ka soo horjeeda diinta iyo dhaqanka labadaba kiisaskaas maaha kuwa cadeyn iyo u baahan in loo raadiyo oo yani qanciyo dadka saasa maaha iyaga laftooda maamulka xarunta markii laga wareystay ee saxaafadu wareysatay iyaga laftooda way qireen kiisaskaas inay jiraan inkastoo ay siyaabo kale u cudur daaranayeen oo markii aan loo arkaynin inay xataa buuxin karto waxa dhacay waxaan isku dayay markaa inaan dacwad ka gudbiyo oo waxyaabaha anshaxa iyo dhaqanka iyo diintaba ka soo horjeeda dastuurka laftiisana waa ku taala qodob baa ku yaala anshaxa ka hadlaya marka meelaha la xiriirayo guddida anshaxa ee baarlamaanka oo kale iyo wasaaradda awqaafta iyo dabeetana markii dambe qoliyaha yar baajiyey wasaaradda awqaafta oo kale oo tiri annaga arrinta balgalaynay noo kaadi qoliyahan wanaag farista iyana aanu kulanay oo yidhi bal aanu annagu hawsha galle ee nasugo waa shaqadayadii qoliyahaas ay baajiyeen runtii hawshii dabeetana way iska jiitatay markii dambe oo sidii marba muddadii leelahaa nasug bay waqti qaadatay dacwadii markaa maan gudbin oo maxkamaddii iyo garsoorkii maan tegin وانا أرين دميرهان أي تابعني سيدان شخصية هو أنكلها ما يشيرين أما واحد قاعدنا شخصيا ما يشيرين لكن دميرهان يسلامهان يو بغانهان يو أمدهان بان ين وقدم قناعي مرمر كاسية هاي مرمر كلا كدم بيسية هاي أو سلب بليه ملا كدم بيه بوك فرق لقبتي تبع ثنا بوك فرق مركو دماري بهدنا وحسوا عسومين لأنه الشيء dalka Botswana oo u dooda ama u ololeeya dhaqamada xunxun ee aynu ku naqaanay dadkan qoomaluudka ah marka film budunkaas soo bandhigay dad 300 qof gaadhay si iyagu sheegeen ayaa ka soo qayb galay bugaag buu soo bandhigay marka waxyaabahan anigu markan ka hadlayo inta badan xagga bulshada iga timaada markii la weydiiyay qolada dhaqankuna waxay yiraahdeen ninkaasi waa jiray waa noo dhuntay oo si ama aan mooday markii kale waxa ay yiraahdeen wallahi xataa hadduu waxa ka shaqeeyay muraad kama aan lahayn anagu filimkiisa iyo waqti soo bandhigay waxa aynu awood saarayn oo yani inuu yahay nin xidiga oo lagu dayan karo oo dhalinyarada waxa oo Afrika u ololeeyo ka xagaasaanu ka galeynay saas iyaguna ay ku doodeen laakiin dood jaban bay ahayd ninkaasi waxa soo shaqeeya waa nin caana waa nin garyaqaana waa nin dalka Botswana xataa oo xeerar adag ka yaaleen arrintan ku guuleystay in maxkamadihii intuu galo xeerarkii dalka u yaalay bedelo oo qodobada ka saaro qodobaluudka ka horreeyay dabeetana markuu dalkiisii ku guuleystay haddana loo soo diyaariyay in dalal kale oo waxaan wax ka qabto oo fikradii gudbiyo marka kaasina kaasoo ahaa labada jeer baa waan ka hadlay anigu mar horena waa jiray 2015 oo anigu aan taa ka hadlin oo gabadh ay keeneen ingiriiska u dhalatay oo u dooda in dumarku ama waxaan yiraahdaan jinsiga ama iskuursadaan ama waxa taasna way keeneen oo watii culimada iyo masaajidada iyo magaalada isla kacday marka
waxaa taa aan ka wareystay culimadii goobjoogga ahayd wasaaradda awqaafta la isla galay oo xaruntana u yeedhay maamulkeedii culimadana u yeedhay dabeetana xarunta markaana way qiratay arrintaasoo waxay yidhahdeen gabadhaas way jirtay oo saas sida kale ay yidhahdeen bay waa noo dhuumatay oo waa kaas markii dambe waxaa bay yidhaahdeen dee gabadhaasi markay waddankeeda joogto ayaa waxaa ka shaqaysaa ee halkan oo kale may ahayn marka culimadii goobjoogga waxay u yidhaahdeen maanta wax la kala seexday inaanay wax dambe oo waxyaabahaasa aanay keenayn maantana loo dhaafo laakiin ballankii ma suuro gelin oo may fulin oo ninkanaa ka dambeeyey bursuwaana u dhashay laanna maxaa yeelay 2015 bay ahayd gabadhu ninkan inuu 19 ahaa baan filaya xilliga keeneen muddooyinkii dambe xarunta buuq badan baa ka taagnaa xarunta dhaqanka hadalhaynteeduna way badnayd iyadoo weliba u badan dhanka xun hadalhaynteedu ma dafirayo inaanay wada xumayn oo barnaamijyo badan oo ummadda waxtar u leh ay qabato laakiin barnaamijka wanaagsan waxaa ku lifaaqan ujeedooyinkaa kale yaa ku lifaaqan marka xaruntu waxay awoodda saartaa oo indhaha aada ugu haysaa da'yarta wixii 20 jir ka yar oo loo tuso inay meeshu tahay meel aqooneed meel dhaqan meel buugaag iyo akhris ayaa dhallinyarada loo tusayaa dabeetana dhallinyaradaasaa wixii ujeedooyin laga leeyahay laga fushanaya dee maanta kolleyba ma qarsoono ujeedadeedii oo filima in la isweydiinayo ummaddu aad bay runtii uga dharagsan tahay ummaddaasun in akhlaaqdeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda laga weeciyo ayay xaruntaasi maanta ku suntan tahay marka xaqiiqada la sheego aadna waa imika looga hadlaa waana lagu baraarugsan yahay waxaan aada ugu mahadinayaa dhallinyarada facebooka oo aad uga hadlaa runtii dadku imika aad buu ilbaxnimadiisa iyo aqoontiisu u sarraysaa iyagu ma garanaya si u fakerayaan twitterkaa la gelaya facebookaa la gelaya meel kastaad wax ku qorto waa la soo helaya dhallinyaradaasi way soo helayaan wixii ay sidaan oo xaqiiqadii oo qofkii sawirkiisii iyo hadalkiisii ay noo keenaan oo ay soo baadhan bay noo keenaan oo aan muran lahayn oo cid ka murmi karta aanay jirin ay noo keenaan markaasaan anaguna baahinaa ummadda gaadhsiinaa inaana waxaasaa jire ummaddu ha laga qabto ama ummaddu ha iska ogaato marka xaqiiqatan markaan ku soo noqdo xaruntaas ujeedooyinkeeda sidaan filaya waa laba oo midna waa kan inoo muuqda oo dadkan dee sawirkeenna iyo magaceenna iyo haybaheenna iyo deegaanadeenna ah weji kale waa weji kaloo ka dambeeyo oo ummadihii malaa soo dirtay iyo dadkii ka dambeeyey weeye marka calaa kulli xaal xaruntaas aada weydiisay sidaa aan hore u xusay hadalhaynteedu iyo buuqeedu waa badan yahay xarun bulshada waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda marka la isbarbar dhigana waxyeeladeedu badan tahay weeye maadaama ay xaruntu muxuu ahaay aada sheegtay inay waxyeeladeedu ay ka badan tahay waxtarkeeda yani goob noocaasoo dadka muxuu ahay dhaqankooda iyo diintooda iyo waxaweye qiyamkooda waxoodii ku weynaa meel lagu doorinayo ay tahay sidee xarunta noocaasa u furnaanaysa iyay tahay inay wax ka qabato horta weli way furantahay xaruntu dadku ra'yigooda markaad aada u cabirto facebooka iyo meelaha warbaahinta iyo meelaha la isugu yimaado dadku markay ka hadlayaan doodoodu 90% waxay badan tahay in la xidho xarunta aragtida ra'yiga dadweynaha haddii la ururiyo dadku waxay u badan yihiin dadweynuhu xarunta in laga xidho laakiin waxaynu ognahay inay weli furan tahay waxaana xil ka saaran yahay dee madaxweynaha ciddii kale wasaaradaha ee ku shaqada leh isagun bay hoos imanayaan ama awqaafta ha noqoto oo diinta ah ama wasaaradda dhaqanka oo ay hoos tagto ha noqoto wasaaradahaasi madaxweynaha ay hoos imanayaan madaxweynuhu kitaab baa dee lagu dhaariyey wuxuu ku dhaartay dalka diintiisa iyo dadka iyo dalkaba inuu ilaalinayo ayuu kitaabku maray marka tani waxay ka soo horjeedaa diintii waxay ka soo horjeedaa dhaqankii waxay ka soo horjeedaa qiyamkiisa aad sheegtay iyo akhlaaqiyaadkii ummadda oo ay burburinayso marka cidda koobaad ee aakhiriya adduunyada lagala xisaabtamaya maaha adduunya maca aakhiro lagala xisaabtamaya waa madaxweynaha
inaga hadalkeena dadka hadduu iskaba dhagamariyo ama isdiidsiiyo dee maalinta qiyaame ee ilaahay la hortaagan yahay dee xisaabteeda way imanaysaa. marka madaxweynaha horena waanu ugu soo jeedinay inuu arrintaa wax ka qabto. mar labaadna waa ku celinaynaa hadduu dee u dhaga nugul yaho maqlayo arrimahan aan ka hadlaynaa arrimo cadaynayo u baahan in la raadiyo xog iyo waxa maaha. waa arrimo iyaguna ay qiraal ku yihiin dadweynuhu ka dhergsan yahay. marka haddaad tiriyaa wax ka qabanaya waxa wax ka qabanaya oo xilkeedu saaran yahay dowladda oo uu kow ka yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi.